Weeraryahanka Liverpool marna lanku weerari jiray safiirka Islaamka yaa nagaday langandhaga nugul reer galbeedka kadib markii diinta Islaamka dartiya lanka diiday abaalmarinta Ballon d'Or oo sanad walba la qiimeeyo ciyaartoyga Ankafayla adduunyada lama biyaajiyay aan dabaaldegay farxadda Ciidda Kirishtaanka horeyna malaayiin dollar yaa ankadegay kaniisadka Guuti dalka Masar walow malaayiin kale usa anqibi muslimiinta ku qayb qaadowka dhisowka kaniisadda waa taariikh madow oo aan diiwaan galsan falalka xun ee Mo Salah wayba sitamaanku ku dharafay malaayiin muslimiin waybana hoos andhiyay heshmadii iyo an haayeen weeraryahanka Liverpool oo murung dhigli aqeydadiis inkastoo uu sujuudka dabaaldego markii gool dhali ama shabaga hataabada 2019 Faransa Football yaa la balmartay abaalmarinta soo qalama wayna ka bedelay Van Dijk kaas oo markii dambe ku guuleysaday laacibka Lionel Messi markaas ku dib Mohamed Salah yaa dabaaldegay Ciidda Kirishtaanka si uu aan raali gali madaxda FIFA balse wayba ku dhahlay guul darooyin isdaba joog ah xilli ciyaareedkii hore yaa ka dhamaysaday niyad markii uu kooxdiis lagu qaaday Champions League iyo Premier League wayba kala awoodi waayay inuu xulshay Hansara koobkii adduunka 2022 25 December 2020 Mohamed Salah yaa la kooyay war farxad geliyo reer galbeedka markii uu iyo habartiis aan dabaaldegay Ciidda Kirishtaanka muslimiinta yaa eedeeyeen Mo Salah tilaawada uu qaaday iyo intii sideen amarkii Ilaahay oo intii in dabaaldego korno qof muslim ah Ciidda Kirishtaanka oo ka ekaado Ciidda furan tan aan rafiyo maalinta Jumcada balse way ballan inkiro korne in Mo Salah ay deeqsi maal badan an ka deeqay masaakinta ka nool dalshay Masar waybana horay aan dhisay isbitaalo iskoolaad iyo goobo badan oo madadaalo Mohamed Salah yaa la aqoonsaday shakhsiga sideed ee an ka deeqsiga badan dalka UK kadib markii uu an ka deeqay muslimiinta malaayiin dollar gaar ahaan faraa'inta Masar